السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وإذا وذا السلامي ميل والبقو آجوكتان نبضي أيان إذا الله هاي إن ولا ليال إن وحاو جدان وعلنكي قلمدك وحا إن ما أنت نوصو فوله وصو صعدو سويننا وحاوي وأفرية طبانكي أغسطو maalinta loo asteeyay ama maalinta loo dabaaldego maamul goboleed kasta waxa uu leeyahay maalin ama taariikh bulshada halkaa ku nool ama deegaan ahaan ay xusaan oo ay u dabaaldegaan oo yiraahdaan waa maalinteennii 14 of August waa maalinta loo asteeyay Galmudug State. Marka waxaan rabaa inaan in yar oo dabaaldega ka duwan inaan ka hadlo fikirkaygana aan ku cabiro 14 of August horta reer Galmudug haddaan nahay markaan horta Soomaali haddaa ka hadasho maanta waa ogtihiin mar horeeta ayaanan iska dhaafay inaan Soomaali waan ahay ma diidani laakiin inaan guud ahaan inaan Soomaaliya ka hadlo sababta keentayna waan sheegay waana sheegi doonaa waxa weeye maanta inaad Soomaaliya markaa ka hadasho in lagu yiraahdo reerkiina ma ka hadashid ama gurigiina ma ka hadashid ama maxaad kayga uga hadlaysaa marka waxa weeye dantu waxay kugu kalifaysaa in aad tiraahdo maxaa deegaankaygii ka jira dadkaygii maxaa ka jira guud ahaan iyo gaar ahaanba waa u hadlayaa marka guud ahaan marka meel la dhigo taa waa qarankii Soomaaliyeed iyo unaga wada dhaxeeya laakiin gaar ahaan markaan u hadlo Galmudug inta aan iska dayno horta bal meel noo dhiga waxa nagu soo socda 14 of August ma isweydiinay horta sanadkii tagay maxaa naga tagay maxaan qasaarnay maxaan faa'iidnay gobolka maxaan ku soo kordhinay maxaase aanan ku soo kordhinin caqabadaha hor yaala maxay yihiin caqabadaha aan ka soo gudubnay maxay yihiin gobolku muxuu u baahan yahay horumar maxaa loo baahan yahay maxaa la gaaray maxaa la doonaa dhalinyaro iyo waayeel ciroole iyo culumo ganacsato cid walba miyaa la iswareystay gobolka maxaa ku gadaaman colaado ayaa ku gadaaman waxa ku gadaaman maxay ahayd abaaro ayaa ku gadaaman abaarahan sidii looga bixi lahaa iyo colaadahan sidii looga gudbi lahaa miyaa la iska wareystay waxa weeye imisa arday ma lagu xisaabtamay imisa arday ah ayaa soo baxday oo soo qalin jabisay dal iyo dibad dadka qurba joogta ah ee ka soo jeeda Galmudug 11 qabiil ayaa ku heshiiyay 11 kaas qabiil meelaha qaarkood lama gali karo lamana tagi karo waa wada ognahay waaqiciga jira oo waayo waxa haysta waxa weeye waa maxay ahayd nimankii shabaab ayaa haystaan oo dhib badan ka Galmudugna in dhaweydba ku soo waday qulqulato iyo dhibaato hadda maxaa kugu soo foodle maxay ahayd madaxweynaha jooga muxuu qabtay wixii uu qabtay waan isla wada ognahay wuxuusan qabanina waan isla wada ognahay gadaal loogu noqon maayo laakiin khasaaradii dhacday iyo dhibkii dhacay ma ku waana qaadatay maxaa ku qorshe ah focuskaagu muxuu yahay xageed ku socotaa waa maxay hamigaagu ambitionkaagu waa maxay dhalinyaradu maxay doonaysaa inay qabataan ganacsatadu maxay doonayaan gobolka inay ka qabtaan ma aha kaliya maslax inta la yiraahdo inaa calanka nulno inaa la niikiyo inaa la yiraahdo madaxaana furan inaa la yiraahdo Galmudug waa guri gobeed yes dheh waxaa doonta qad laakiin waa maxay ujeedkaagu xageed rabtaa inaad hiigsato maxaad rabtaa maamulada kaleeta ee adiga kugu xeeran ee maxay tahay magaciisiga inaad maxay tahay kula tartanto dadka ka soo bixi doona iyo jiilka ka soo maxaad abuurtay jiilka ka soo bixi doona kuwa hadda jooga kuwa bedeli doona kuwa sii bedeli doona maxaad u qorsheysatay maxaad meel u dhigatay maxaa kugu soo socda maxaa caqabadaha kugu soo socda sideed uga gudbi lahayd maxay ahayd haddii roob yimaado oo dhulkaagu uu yahay dhul biyood ama dhul maxay ahayd webi oo kale u maro oo biyo xireenka waad ku sii maxay ahayd yacni waad u sii diyaar garoobaysaa ardada wax baratay maxay ku salaysan yihiin caafimaadka hadday noqoto tiknoolajiyada hadday noqoto ganacsi nooc walba ay yihiin maxay ku salaysan yihiin maxay qabteen maxaa programa oo loo sameeyay dadkan horumar intee la eg ayaa gobolka ka jira
maxaadse hiigsanaysaa, waa maxay waxa hamigaagu uu yahay oo aad rabto iyo goolka aad rabto in aad gaarto. ninka caqabada kugu ah ee horumarkaaga caqabada ku ah, sida aad iskaga horleexi lahayd oo iskaga horwareeji lahayd ma ku tala gashay. wataaniyan ninka hadda wax qabtayo waxa aad qabatay ma adiga keliya ayaa isku koobay oo adiga keliya ayay meel ku yaaliin, mase waxa aad baraarujisay dhalinyaro berritoola waa la dhimanaa, kulligeen dhan waxaan wada saaranahay naxashka dhimashada ayaan wada saaranahay. marka aan wada saaranahay maalinba mid ayaa tegayay, ama maxay ahayd waxaa kugu dhalanaya gabow, ama adoon gaboobin baa lagu bedelayaa, ama adoon gaboobin baad dhiman kartaa, ama waad dhoofi kartaa, ama dalka maxay tahay sidaa doonto ayaad maxay ka tagtaa. jiil kaleeto oo ku bedela miyaad shaqada u abuurtay, ma u abuurtay dhalinyaro berritoola wax qabanaya, kaa hadda wax qabanaya berritoola maanta adigu haddaad joogto kursiga maxaad diyaarisay, maxaa miiska kuu saaran, waa maxay waxa aad ugu talagashay in ay dhalinyarada gobolku ay qaban karaan. beeraha kuwa maxay ahayd kuwa u tababaran beeraha iyo wax soo saarka miyay jiraan, kuwa maxay ahayd dalagyada siday u baxaan iyo xilliyada ay kala baxaan dhalinyaro loo tababaray miyay jiraan, xoolaha kuwa loo tababaray miyay jiraan, dekadaha iyo sida kalluumaysiga iyo sida wax loogala soo baxo dhalinyaro iyo dad aqoon-yahan ama loo tababaray miyay jiraan. hadday jiraanna maxay qabanayaan, oo waa maxay hadday jiraanna wixii ay qaba lahaayeen ama mashruuci ay wax ku qaba lahaayeen miyaa loo diyaariyey, mase hadda kabacdi ayaa la diyaarinaya. haddii la diyaarinayana intee ayay qaadan kartaa waxaani. dhulkan haddii maantayto dhalinyarada ama maskaxda la mideeyo oo aqoon-yahano lasoo saaro, dhulka galmudug oo dhan waxaa ka hooseeya oo yaala biyo ayaa yaalaan. dadkuna waxay u dhintaan ama u magaciisaba waa oon iyo waa gaajo. dhulku waa beero oo meesha saa loo qodaa beero ayaa kasoo baxayso, dhulkaa beero kama baxaan, waa beenooday, waa la wada ogyahay. waa wax mar horeeto ama sanado horeeto ama tegay dadka laga dhaadhacsiiyey. markii dhibkii yimid dhul Soomaaliya ku yaala oo aan beeri ka bixin, oo aan qudaari ka bixin, oo aan maxay ahayd aan wax ay nuuc la cuno maxay ahayd aysan kasoo baxaynin ma jiro. laakiin dadkanaga waxaa laga dhaadhacsiiyey hal meel keliya inay wax ka baxaan, laakiin dhulkan aan waxba ka bixi karinin. xoolo ayaa ilaahay ku siiyey, beero ayaa ilaahay ku siiyey, dhul ayuu ilaahay ku siiyey, laakiin waxaa la rabaa maskaxdii midaysnayd iyo muruqii midoobi lahaa. maskaxdii inaad la timaado iyo muruqaaga aad midayso oo aad la soo saarto, oo aad la timaado wax soo saar, oo aad la timaado fikir, oo aad la timaado maxay ahayd wax horumar gaaraya, in aad horumar sameynaya in aad la timaado. macnaha keliya ma ahan maalinta la gaaro 14 Agosto inaanta isku imaano hoolal aan kireyno, hoolashaa markaan kireyno xaflad lagu tumo nimanka iyo naagaha iyo wax kasta iyo mid marada bitida iyo mid calanka isku duubta in aanaa noqonin, ee waa inaan noqonaa maxaa hamigeenu waa maxay, xagee ayay ku socotaa, wixii inaga qasaaray sidee ayaan uga maxay ahayd soo kabanaa. gacmo wadajir ayay wax ku qabtaane maxaa inoo dana, xagee inoo dana, waa maxay caqabadaha nagu gudban iyo sidaa uga gudbi lahaydeen. xisaabtan waa inaa la timi hore hadaadan ula imaanin oo aadan la xisaabtaminin maamulka jira, adiga ayaa wax ku leh, adiga ayaa maxay ahayd lagaa rabaa. qof kasta saqiir iyo kabiir inta meesha joogta, culimo iyo caame inta meesha joogta, ayaga ayay ka doonayaan maamulkan inay wada ilaashadaan sidii uu hore u mari lahay. maxay ahayd baalkii isha uu u noqon lahay mid mira dhalana adiga ayaa lagaa rabaa. ma aha keliya maalinta 14 August keliya inaan dhahno madaxaana furan maxay ahayd oo maslaxyada keliya aan imaano. inta marka waxa waa inay yeelataa
maamul soo baxa waa inay yeelataa la xisaabtan, maamulku waa inuu la xisaabtan leeyahay, la xisaabtankaas jira uu yahay waxa uu u qabtay dhalinyarada. Dhul walba waxa hormaraya waa dhalinyarada. Dhalinyaradu meesha ay ka seexato ama dhalinyarada aan hore looga qaadin ama dhalinyaradu aysan wax baranina, dadkaas waa hagaasaan. Dhulka ma ahan kaliya in la nabaad guuriyo. Dhalinyaro ka ilaalisa nabaad guurka waa in la helaa. Dhalinyaro maxay ahaydee xagga tacliinta ku fiican waa in la helaa. Maxay ahaydee ka shaqeeyaan meel walba aan caalamka aan adduunka aan ku noolnahay. Waxa weeye waxa ka sameeya horumarka, waxaa maxay ahaydee hadday wax diidana diidmada ay diideen la aqbalaa oo la yiraahdaa adduunku wuxuu ka fakeraa dhalinyaradu marka ay wax diido oo ay dhahaan waxaan anaga waa diiday. Caalamka ama dowladaha westernka way ka fakeraan. Dhalintan nimankan waxay ogyihiin kursiga maanta fadhiya inay berri duqoobayaan, laakiin annaga inkastoo nahay xukun Afrikaan aan leenahay, haddana waxaan dhihi karnaaba ha xumaata hama yaraatee 4 sano in la isbedeli karo, wax isbedeli karaan ayaan haddana saasay tahay. Annagu waxaan la imaanaa 4 sanoba in ay wax isbedeli karaan, wax walba ha isbedelaan, laakiin waxa weeye dhibkii dhacay waan ognahay oo iyo dhibaatadii timid. Galmudug yaysan ku waxaan aniga maanta aan leeyahay kaliya galmudug yaysan ku ekaanin, ma ahan inaan kasoo horjeedo maxay ahaydee mana kasoo horjeedi karaba maxay ahaydee yacni astaanta iyo galmudug, laakiin waxa aan ka hadlayaa waxa weeye waa waxqabad. Waxa weeye waa in aan lagu ekaanin kaliya maalintaas laiskugu yimaado 14 of August kaliya 14 August kaliya inta la iskugu yimaado dadna halkaas looga tago oo haddana sanadka ka xiga aan la iswareysan ee aan la dhihin sanadkii naga tegay waan dabaaldegnay intaasoo qarasha ayaan waxaan ku bixinay hoolashii iyo meeshii aan iskugu nimid ayaan ku bixinay. gobolkanagii maxaan u qabanay, imise dhalinyaro ah ayaan soo saarnay, maxaa dhaqaatiir naga soo baxay, maxaa macalimiin naga soo baxay, maxaa injineer naga soo baxay, yaa IT yaqaana, yaa berritoola maamulkan bedelayo. Maamulka hadduu xumaado waxaa loo baahan yahay dhalinyaradii la xisaabtami lahayd oo dhihi lahayd maamulka waxaan iyo waxaan ayuu ku qaldamay, intaan annaga jiilkii soo baxaya ayaa nahay. Fariinteyda waxa ay ku socotaa waa dadka dhalinyarada, wiil iyo gabar midna ma kala reebay. dadka adinka ayaa ah mustaqbalka maantayda soo socda. Mar walba ma aha maskaxdeena nin odayo oo gaboobay inta laydinka soo xulo in uu waxa uu doono adinka meeshii ah maxay ahaydee baalka ama aan wax qorin ee suulka kaliya wax ku saxiixa in uu wax ku meeriyo. Waxa ha ku meeriyo xushmad, adeernimo, abtinimo, awowanimo, ehelnimo ha ku ekaada. Laakiin maanta marka ay timaado la xisaabtan iyo yaa wax qaban kara iyo yaa wax samayn kara waa adiga. Hadday noqoto ciidanka maxay ahaydee nabad sugidda oo maxay ahaydee ka ah gobolka jooga, hadday noqoto maxay ahaydee ciidanka maxay ahaydee booliiska, hadday noqoto militariga, hadday noqoto cid walba, meel walba dhalinyaradu waa inay ka dhisan tahay. Ninka askariga kuu noqonayo waa inuu yahay ninaan muqaadaraad isticmaalinin, nin dhisan akhlaaqiyan, diiniyan, sharaftiisana ilaashanaya, askarinimo iyo sumcadnimo ilaashanayo, hooyadiis iyo aabihiis iyo walaashiis iyo xaaskiisa iyo gabadhiisa ka ilaalinaya dhibka iyo dhibaatada, qoraxda waxa uu u jooga garanaya, dariiska waxa uu u xirtay garanaya gobolkani waxa uu u yahay guud ahaan dowladda waxa uu xaq ugu leeyahay iyo gaar ahaan maxay ahaydee bahalkii waxa uu asagu gobolkiisa asagana xaqa loogu leeyahay, asaguna uu xaqa ugu leeyahay. Ilaasho galmudug, ka ilaasho dhibka, ka ilaasho dayaca, ilaasho oo u ilaasho future-kaaga, noloshaada dambe, aayahaaga, gabadhaadu meeshay ku koraysay, wiilkaagu meeshuu ku korayay, awowgaa meeshuu ka yimid, aabbahaa meeshuu ka yimid, meesha mustaqbalkaaga. Ka ilaali xumaanta, u ilaali waxa wanaagsan. Mar walba sida aad gurigaaga u nadiifido ee gurigaagu daryeelka uu kugu yahay ayay kaaga mudan tahay in aad guud ahaan ama qof walba 11 qabiil kaliya in lagu riixayo ma ahani, loo wada ilaashado oo laga ilaashado waxa wuxuu dhibaya, waxa wax yeeleynaya, dhibku meeshuu ka imaanayo, qofna inaan lagu dulminin, qofna inaan xaqiisa la qaadan, qof walbaaba cadka uu ku leeyahay iyo xaqa uu ku leeyahay inuu qaadan karo
inuu qaadan karo inuu maxay oo u qaadan karo si xorriyad ah si wadajir ah si loo siman yahay oo cadaalad ah u qaadan karo waxaa idin leeyahay happy anniversary again for the 14th of August kulligeennaba waa idin wada salaamayaa ballantu ha ahaato wax wada qabsi wadajir ee walaalnimo gacmaha la isqabsado waxaa kaa tegay waxaad faa'iiday waxaad qasaartay waxaa kugu gadaaman waxa aad sugayso iyo waxaa kugu soo socda waa inaad ka fakartaa waxaan idin leeyahay 14 of August hambalyo idin wada leeyahay kulligeena isku tashi iyo midnimo iyo wadajir iyo gacmo wadajira ayaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh